muwaadin kasta oo ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya hadii uu guursado waxa laga rabaa inuu isdiiwaangeliyo hadii uu qof uu furo oo xaaskiisa uu furo asagana waa inuu soo sheego hadii uu xaafadaas qof uu ku dhinto ama isbitaalka uu qof ku dhinto waa inuu soo sheego yani meel kasta oo Muqdisho looga baxsanayo malahan dawladda federaalka Soomaaliya dawladda Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo shacabka waxay ka taagan yihiin qaatu billahi maanta waxa ka bilowday mashruuc aad ee dadka Soomaaliyeed ay u hadalhayaan mashruucaas oo ah in qof kasta oo gurigiisa ida loogu tago la leeyahay xaafadan meeqa ayaa ku nool xaafadan meeqa qoys ay ku nool yihiin ama meeqa qoys ayaa degan hadaba magaalada Muqdisho waxay noqotay wax kasta in laga raadiyo dakhli gooni ah ama qof loo xiro hadaba waxa ila daawataa wax yar muuqaalkan hadaa guursato hadaad maaragtay wax furto ama lagu furo intaasba waxay noqon doontaa maaragtay in lagu diiwaan geliyo macluumaadkaas ama ay dhiigas lagu sameeyo doono tusaale waxa waaye hadda waxa lagu diiwaan geliyo in qoys la nooshahay oo hooyada la nooshahay ama aabaha la nooshahay biri hadaa guursato waxa noqonayda adiga ayaa qoys noqonay qoyskaas aan noqotay waxa waaye guurkaada taariikhda guurkaada iyo xaaskaada la diiwaan gelinaa kadib waxa aad dhasho ama ilaahay idin siiyo ayaa maaragtay feelkaas la geli doonaa hadii maaragtay adiga ruuxaada ama ehel ama qaraabo ku timaadaan ruuxeeda feelkaas ay geli doontaa la si lamida hadaad wax furtana feelkaas wuxuu noqon doonaa maaragtay wax geli doona hadaba magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dadka waxay ka taageen qaatu billahi madaxweynaha talada hadda hay ee Xasan Sheekh Maxamuud maahan madaxweynaha markasta inuu yeesho amaan ma wixii runta oo madaxweynaha uu ku qaldan yahay waa in farta laga saaraa wixii uu ku amaanan yahay madaxweynaha waa in la dhaca madaxweyne waxa uu ku amaanan tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud muuqaalkan gaarsiiya madaxweynuhu tani waa mid aad ku qaldan tihiin adiga iyo maamulka gobolka Banaadir sababtoo ah dadka waxay la dhacayeen masruufkooda hadii loogu daro in la dhaho dadka Soomaaliyeed ha isdiiwaangeliyaan يعني هذا إزدبانجليا محمي محي كفايديان أو أدي أنا هين دخل أكيليس وحد دونت يكسر قرا حدي تان هيرجش أما أي كوسي سعته مع الماء صوص عله وحد دونتو إن إسبتالة مقالة مقدشة ذاتك كل أنت الله العر يعني ميت كاس وحلقة ربع عنشور مركي وير تنا وتوندر سيد هذا عضهوس مركي أدفيرسيد ورصحافذتك أي قرنتاي قف كما كل شيء يريا إنه جاء وطشوا waxa laga rabaa lacag waa inaad soo sheegtaa hadii aad xaaskaada furtaa luuri waa inaad soo sheegtaa oo diiwaanka lagu kaliya hadii aad gabar guursanaysid ama aad mehersanaysid ayadana waa inaad soo sheegtaa war waxaan dawladii abid ugu xumeed abid ugu liidatay tayahan iyo talahaanbo waa tan hadda talada dalka heeso ee Xasan Sheekh Maxamuud hadaba muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa waxay aad maanta u hadlayaan ama aad u cambaareenayaan inta badan baraha bulshada waxa ka socdo hadaba marka maanta gobolka Banaadir waxa uu soo saaray ninkan ayaa waxa loo magacaabay agaasimaha canshuuraha meedka gobolka Banaadir yani wax laga xishoonayo malaha dawladda Xasan Sheekh Maxamuud wax ay ka xishoonayso oo Ilaahay abuurtay malaha tabcan isma laha hataa waxan waxba idin ka soo gaarayay shacabka ka daay hadaba ninkan ayaa maanta waxa loo magacaabay agaasimaha canshuuraadka qaybta meedadka hadaba marka ninkan magaciisa saddexan ayaa waxa la daawadayaal waxaanu ku magacaaban yahay agaasimaha canshuuraadka meedadka magaciisa saddexan waxa waayo Asad Maxamed Ali agaasimaha canshuuraha meedka dadka nool iyo dadka dhintayba adiga nool waa ku jirta oo magaalada Muqdisho joogo daawadayaal hadaba gobolka Banaadir iyo sidoo kale maamulka talada hadda gobolka Banaadir iyo sidoo kale maamulka talada dalka hadda ay dawladda Xasan Sheekh Maxamuud waxa leeyahay tan waxay ka dhalan doontaa cawaaqib aadan abidkiin ka soo waqsan sababtoo ah waxa xukumeysaan waa bulshadana adinka ay u dhaarateen kitaabka ay gacanta geliseen waa marteen bulshada la rabay inay wax u qabataan ayaa jeebkooda waxa ka raadinaysaan in ay maanta aad wax kala soo dhaxbaxdaan maalinba aad soo magacaawdaan agaasime maalinba aad soo magacaawdaan qof yani gooni loo xiro oo la dhaho waxaas qaabsan tahay ee noo keen kasta hadaba
inkastoo tan ay tahay hadalhayn fara badan balse haddii ay ka laaban waayaan maamulka talada hadda hogaamiye xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale gobolka banaadir ninka u qaabilsan sidoo kale gudoomiyaha haddii ay ka laaban waayaan oo daqiiqadaha soo socda ama maalmaha soo socda ay ka laaban waayaan tan waxay ku noqon doontaa historiga waxay u geli doontaa waxyaabii ay horey u sameyn jireen balse hadda ka hor saan oo kale waxay sameeyeen ID card kaasoo inta badan la yiri qof kasto yani xogtiisa ayaa loo keedinaya ID card kaas maalmo ayuu socday dakhli fara badan baa lagu aruursaday qof waa wax u keenay ma lahan qof walbo isdiiwaan geliyo wax ID card u keenay ma lahan yani waxay noqotay wax walbo budget gooni oo loo xiraayo qabiil gooni ama dad gooni inta badan waxaan ognahay xasan sheekh maxamuud inuu jifjifadiisa ama jifooyinkiisa u dhow inuu wax walbo oo u xiray haddii ahaan lahayd garoonka diyaaradda haddii ahaan lahayd qaybta shidaalka haddii ahaan lahayd qaybta ciidanka haddii ahaan lahayd qaybta magaciisa waxbarashada wax walba oo dowlad ay tahay ay ku lahayd waxa uu xiray dadka jifada ku ah hadaba intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warbixintaas oo dhameystiran haddii aad nala socotay barnaamijka bilow ilaa iyo dhammaad fadlan daawade wixii kaaga baxay aragtiyaada qaybta hoose ee commentiga inagu dhaaf iyo sidoo kale sida aad aragtid mashruucan maanta ay bilaabeen dowladda xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale gobolka banaadir inta badan hadalhayn ay ka dhalatay baraha bulshada sida aragtid iyo sida ay kula tahay iyo sida adiga aad u aragtay fadlan wixii qaybta hoose ee commentiga inagu dhaaf sidoo kale muuqaalkan sii gudbi oo la wadaag asxaabtaada kala duwan mahadsanid